ganacsiga Soomaalidu gebigiisuba waa dilaalnimo. Ya dilaalnimadii way nagu cadayeen in imika alla kama dhigo allana inagama yeele adii cuna qabateen la saara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتي دمان أصحابتي حيران السوشيال ميديا هيك أوردن هكذا غالب أدب مع سنتين إن ما أنتم حنيها يا موضوع آد مهمة ونم مهمة إني نحكي بدلنا إني نكبعنا إني نبلدليلها هاي نولينا هاي يعني حصية إني نحكي قبلنا يعني إن موضوع النهاية وحوي ganacsiga Soomaalidu gebigiisuba waa dilaalnimo. Ya ila socdo saddex question amba saddex su'aalood ayaan mawduuca kaga jawaabi doonaa xuluushoodii amba wixii xal u noqonayeen sheegi doonaa. waayo nooca ganacsiga ay Soomaalidu taqaanaa ma dilaalnimoba. waayo talabaad dilaalnimadii way nagu cadayeen inagu quutayaal baynu nahay, dad wuxuun quuta oo dad kale ku nool baynu nahay. su'aashaana waan ka jawaabi doonaa. talabaad 8% ganacsiga Soomaalidu waa dilaalnimo. muxuu yahay? su'aashaana waan ka jawaabi doonaa. waayo su'aashayda koobada dankala oo nooca ay ganacsiga Soomaalidu ay taqaantaa waa maxay haddaan idhaahdo fikirkayga yara gaabanna ku cabira. waxa weeye nooca ganacsiga ay Soomaalidu taqaanaa waxa weeye dilaalnimo. okay tusaale yar oo kooban baan inaga siinaya. aniga ayaa waxaan tegay China alaab baan kasoo iibsaday. alaabtii baan Somaliland keenay, dabadeetna alaabtii yaroo macaashana waan saartay si dadkii aan ugu noolaado. alaabtiina waa laga iibsaday. intaydii yarada macaashka ahayd baan jeebka ku ritay, dabadeetna haddana boorsan xidho Chinaan qabtay, haddana alaab baan ka keenay. anigu ma ihi wax soo saare ma ihi, laakiin waxaan ku noolahay ninkaa wax soo saaraha alaabtiisa inta yar ee aan u saaranaya ayaan ku noolahay. nooca Soomaalidu ganacsi ay taqaanaana inta yar ee aragtidayda yara kooban aan ku cabiraya waa intaas. haddaad suuqa Hargeysa marta meel kasta oo ka mida alaabta taala waa alaab imported, waa alaab la soo dhoofsaday. waayo quutayaal baynu nahay. sidee baynu nahay? waxaynu nahay quutayaal. waxaynu nahay dhammaan Somaliland haddii imika alla kama dhigo allana inagama yeele adii cuna qabateen la saara. ilaa adduunyadii siyaasad bay isku haysaayeen. inagii sidaynu u badbaadanaa waa si aad u adag. sababtoo dhammaan waxay noloshaynu ku tiirsan tahay wixii aasaasiga dad kale alaabtooda. tusaale yar haddaan soo qaata cuntadaad ma aad taybarka kuu saaran malaha inaad imika cunaysaa laga yaabaabe xilligan aad daawanaysa. haddaad xisaabisa inta waddanka ka soo baxda amba waa 1% amba waa 2%, boqolkiiba 1 amba waa boqolkiiba 2. inta kale oo dhan iska daa alaabtii kale waa cuntadaynu cunayno. inta kale oo dhan Ethiopia ka timaadaa, wadamada kale caalamka ka timaadaa. waayo su'aasha saddexaad ee aan doonaya inaan ka jawaaba mawduucan 8% ganacsiga Soomaalidu waa dilaalnimo. okay xirfadda keliya ee ganacsi aynu leenahay waxa weeye dilaalna waan ka soo sheegay.
بس 98 xirfadda Soomaalidu ay taqaanta was dilaalnimo ee dhinaca ganacsiga. Okay, way in baan ku darayaa marka saddexdii su'aalood waan ka wada jawaabay. In baan ku darayaa marka inagu ma madax bannaanay haddaynu nahay ummad noocaasa ma madax bannaanay ma madax bannaaniduna inaga dheer sababtoo ah haddaynu madax bannaan nahay waxa weeye dee nin kale alaabtiisii kumaynaan noolaan lahayn innagaa wax soo saar yeelan lahayn. way xuluushii amba xalalkii lagu xalilayay ee caqligayga yara gaaban uu ka soo fikirayna waa kuwan. way in la kordhiyo wax soo saarka waddanka waa in la kordhiyaa 100% si xal loo doono. okay, ta saddexaad ta labaad waxa weeye inaynu noqono ummad inaga loo soo dilaal taga ee aynaan noqon inagu ummad ayna adduunyadii maxay u dilaal taga sababtoo ah markasta oo wax soo saarkaagu bata adigoo wax soo saarkaagu bata waxaad gaaraysaa horumar dhaqaaleed, horumar ummadeed, horumar siyaasiyeed. waayo adduunyada wax kale la isku madin wax soo saar baa la isku dilaa. waddankaas wiiga wax soo saar badan yahay ayuu waddanka kale ugu duulaya. marka inagu inaynu wax soo saar yeelanaa taasi waa laasim. way markay wax soo saar uu yimaada waxaynu noqonnaa ummad madax bannaan ummad gaari karta go'aanadeeda masiiriga ah si aynu madax bannaan. anigu Khadar Nuur Ismaaciil baan ahay anigaana gudbinaya fariinta noocan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.